markaa waxaan ku bilaabayaa maxamuud xasan. ciidamada gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay inay sii wadayaan dagaalka culus ay ku hayaan caasimadda Jugoslaafiya, halkaasi oo la sheegay inay dagaalkaasi ay ka sii wadi doonaan diyaaradaha qumaatiga u tuula ee Maraykanku. ka maxamuud xasan baa la odhan jiray. dhalinyaro hubaysan ayaa saaka rasaas ku furtay eerimoodka caasimadda Hargeysa, halkaasi oo ay wateen baabuurta loo yaqaano Toyota Mark II. dhalinyaradaasi waxa ay ku fureen rasaas ooda kaga qaadeen eerimoodka Hargeysa, halkaasi oo ay ku dileen hal askari, halka iyagana lagaga dilay mid ka mid ah. wasiirka arrimaha gudaha Ismaaciil Aadan Cismaan oo qadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa waxa uu ii sheegay inay dhalinyaradaasi ka qabteen dhammaanna ay sharciga hoos gelin doonaan. axmed siciid BBC Hargeysa. kaasina waa axmed siciid axmed maxamed Nairobi. caashida ninkeeda ayaa gaadhay wuxuu ku maray meel u dhow Awajeer, halkaasi oo la sheegay inay baabuurtaasi ay u socdeen asoodinta Kampala, waxaana halkaasi ku dhintay ahasha ninkeeda oo u yaqaanaan awr. kaasina waa maxamed axmed Nairobi. shaadiye maxamed Rooble. dowladda hoose Hargeysa ayaa saaka waxa ay olole ku qaaday wadooyinka xidhan ee magaalada Hargeysa, halkaasi oo la sheegay inay dowladda hoose u hogaaminayay maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Caydiid, waxaanu sheegay inuu aanu u dulqaadan doonin wadooyinka xidhan ee magaalada Hargeysa. shaadiye maxamed Rooble, BBC Hargeysa. kaasina waa shaadiye. cabdilaahi xasan jaamac, Moscow. dalka Ruushia ayaa waxa uu galay marxaladii ugu dambeysay. dalkani Ruushia madaxweynaheeda Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay inaanu marnaba aqbalaynin inuu Maraykanku adduunka u taliyo, isagoo sheegay inuu Maraykanku noqday cadowga ummadda Islaamka. waxaanu Islaamka u soo jeediyey inay meel uga soo wada jeedaan Maraykanka oo dhinac ka wada maraan, isagoo ku dhaqaaqay buu yidhi jabaabiriintii soo martay dunidani ayuu aanu Islaamka u dulqaadan karaynin, annaguna ma ogolin buu in diin ahaan la isku weeraro. cabdilaahi xasan jaamac, Moscow. kan cabdilaahi xasan jaamac baa la odhan jiray, BBC ka shaqayn jiray. yunis cali nuur waa nin weyn oo BBC daasna ka shaqeeya. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Maraykanka ayaa waxay weerareen meel uu Ruushku ku tababarayay ciidan nooc dholotus uu ku sameynayay, halkaasi uu sheegay inaanu marnaba ogolayn. kaasina waa yunis. waxaa idin hadhay maxamed cabdilaahi cumar oo ahaan jiray wasiirkii daahin arrimaha dibadda ee Somaliland. meeqaamkii ugu sarreeyay Somaliland ayaana lagu soo dhaweeyey. waxaanu tagnay dalka Maraykanka, waxaanu tagnay Ingiriiska, waxaanu la kulanay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Daafur Cameron. wuxuu noo sheegay inay Somaliland marayso halkii ugu sarreysay, maaha markii ugu horreysay ee lagu soo dhaweeyey meeqaamkii ugu sarreeyey. annagu waxaanu qabsanay dal baabaay oon waxba ahayn. kaasina waa maxamed cabdilaahi cumar. daahir riyaale kaahin waa isagoo khudbad ka jeedinaya khayriyada magaalada Hargeysa. marka dacaayaddu way ka baxday meesha. tii hore waan ilaabay, mid fiican ban ayaan samaynaya maadaama uu ahaa madaxweyne jamhuuriyadda Somaliland oo sharaf inaga mudan. waxaan idiin sheegayaa ummadda reer Somaliland ee maanta aynu halkan joogno inaynu dalkeenna aynu gacmaha iska qabsanno cadowga Somaliland. ma aragtaanay, waxaan idiin sheegayaa inay Somaliland leedahay cadow fara badan oo inagu soo duulay oo doonaya inay dalkeenna burburiyaan oo ay baabi'iyaan. shacabka Somalilandna waxaan farayaa walaalayaal inaynu gacmaha isqabsanno oo aynu ka shiraakoowno cadowga Somaliland. waxaan idiin sheegayaa maahin inay dalku ay seegtaan oo ay isdhigtaan, waa inaynu cadowga haddii aanay dowladda aynaa wax la qaban aynu meel uga soo wada jeedno. kaasina waa riyaale. walaalayaal, maanta ummadeenna iyo shacabkeenna waxaan idiin sheegayaa inaynu gacmaha isqabsanno aynu ka shiraakoowno cadowga Somaliland oo aynu gacmaha iska qabsanno ayaan idin farayaa
oon idiin soo jeedinaya waxaan idiin soo jeedinayaa ummadda somalilan inaynu madaqada gubanaysa ee geeska afrika aynu ka shiraakoobno oo aynu ka gacmaha iska qabsanno taasina waa daahin wasiiraayo waa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa nin aad dalka wax uga qabtay oo horumariyey ilaahayna amrigiisa ha raajiyo idamka allah waxaan idiin soo aan ku soo gabagabayn lahaa inta kale maad inoo hayn inta kale maad inoo hayn doorka dambaynu waan haynayaa inta kale inoo hay waay walaal waayo indhii baan casaaday imika wax badan baan qosolnay biyo marka inta kale ma karnay maanta dib noogu dhinta kale runtii waxa weeye waxyaabaha looga baahan yahay barnaamijka waxay ka mid tahay arrintan oo kale waa got talent waad arkaysaan inta cod uu jilay ee iskugu keenay isaga oo mid walba uu sidiisii usoo dhigay marka waxaan leeyahay xaggayga haa waa sax runtii waxyaabahaas aad u sheegtay cabdilaahi in loo baahnaa inay barnaamijka aynu ku soo qaadanay ka mid ahayd arrintani anagu gaar baa lusin qilin waa saaxiibkeenikani sidaa darteed weliba anigu waxaan ogahay wax badan oo inoo qaranayo iminka hadduu inoogu dari lahaa miisaskanu jirin lahayn haabaan idhi waxaad keentay wax lagu farxo oo waxaan ku yidhi 10 cod oo kala nooca qofka tili karaa way ku yaryahayd maxaa imika dalkan iyo dadkan marka ku dhex noolahay marka waxaan anugu ku leeyahay sidaa way ahaadee waad heshay wuxuu matelayaa runtii barnaamijkan wixii aynu u samaynay inuu yahay inaynu helo hibaday naga qarsoon ee dadku ay leeyihiin inay waqti helaan oo ay leyrhka yimaadaan oo halkan laga arko oo ay dadku ogaadaan waataynu doonaynay inta maqlaysa ama maqli doonta na waynu ku dhiirigelinaynaa inay soo dhiiradaan oo isa soo qoraan barnaamijka waana mahadsantiin dhammaantiin mahadsantiin waayahay siyaaro شو اسمك؟ I speak English. What's your name? Ibrahim. Ibrahim. Where are you from? Belgium, but I come from Somalia. Originally you're Somalian. Yeah. What are you going to do here? I'm just going to let my body talk instead of my mouth. All right, that's better probably. Go ahead. Go ahead يا إبراهيم. Go ahead. شوف شو راح يقلنا بجسمه العظيم.